soo dhawaada daawadayaal fur wanaagsan qodobada xiisaha leh caawa fiidnimadan kuwooda ugu door koroonad halkan ku daawan doontaana waxa ugu waaweyn ciidamada geesiyaasha beesha ciise ayaa gacanta ku soo dhigay laba sarkaal oo muhiim u ah maleeshiyada beesha Samaroon oo ay gacanta ku soo dhigeen haddaba halkee ayaa lagu soo qabtay raggan saraakiisha ah ee la sheegay in ay hogaaminayeen maleeshiyada beesha Samaroon halka sida gaarka ah howlgalkan uga dhacay ayaan rabaa daawada in halkan kuula wadaago ku faahfaahiyo sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh halkan ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha maamulka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa cabsi weyn soo wajahday taasoo ah in Iran ay duqeymo ay ka fuliyaan magaalada Hargeysa iyo waliba sidoo kale Xuutiyiinta Yemen haddaba madaxweyne Ciro maxaa uu ku dhaqaaqay waan kula wadaagi doonaa xaaladii ugu dambeeyay ee markaasi magaalada Hargeysa oo cabsi weyn markaasi ka taagan sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh halkan ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynayaal hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba sidoo kale Shariif Sheekh Axmed oo ay ballan qaadeen in 15 May uu dalkan uu gali karo xaalad kale oo halis ah haddaba waan kula wadaagi doonaa hub noocee ayay heleen xaalad noocee ah ayay rabaan inay dalka ay geliyaan madaxweynayaashan waan kula wadaagi doonaa iyadana qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso leh oo nagu soo kordhanayeen halkan idin kula wadaagi doonaa iyo waliba sidoo kale xaaladaha markaasi ka jiro dhanka waqooyi bari halkan aad iga daawanaysaan waa Macaash Media haddii ay taa markuu ugu horeysay fadlan YouTube-ka subscribe dheh muuqaalkan aad daawanaysidna like garay siina share garay oo saaxiibadaada la wadaag mahasani daawade hagaag aynu ku bilaawno Ramadan Kariim afur wanaagsan ayaan ku leeyahay daawade wax laga yaabaa waqtiga muuqaalkan ku soo gaaray inaad afur u fadhisid ama afur ka dhamaatay oo aad iska liirsanayso soo dhawaan ayaan ku leeyahay faahfaahinta ayaan markan u gudagalayahay qodobkan ugu horeeya haddii aan fiiriyona ciidamada geesiyaasha beesha Ciise Weyne ayaa gacanta ku soo dhigay laba nin oo sarkaal muhiim u ahaa maleeshiyada beesha Samaroon oo maalmihii dambe ay dhaqdhaqaaqyo ay ka wadeen gudaha gobolka Salel iyo Awdal oo ay ahayd goob si weyn ay ugu wada dagaalameen labadan beelood haddaba labadan sarkaal ee la qabtay ayaa waxa ay la sheegay inay muhiim u ahaayeen ciidamada maleeshiyada beesha Samaroon kuwaas oo gabaad u ahaa maalmihii u dambeeyay dhulka ay hadda maamulka Guban State ay u markaasi ay ula baxday beesha Ciise Weyne taas oo ay markaasi ku kaliftay labada nin sarkaal oo ay doonayeen in qaab dhuumaaleysi ah ay ku joogaan iyagoona ay rabeen in ay jaasuusaan ciidamada markaasi geesiyaasha ee beesha Ciise ee halkaasi ku sugnaa balse laakiin ila sirdoon ah ayaana ku fahmay oo gebi ahaanba soo afjaray soona gabagabeeyay raggan ay iyagoo saraakiisha ahaayeen isku dayeen in ay maaragtay warbixino iyo waliba sidoo kale ay ka soo gudbiyaan ciidamada beesha Ciise bal markan aan fiirino ciidamada beesha Ciise ayaa gacanta ku soo dhigay laba sarkaal oo muhiim u ahaa oo ka tirsanaa maleeshiyada beesha Samaroon iyagoona ay markaasi ay ku sugnaayeen deegaanada iyo waliba sidoo kale tuulooyin ay markaasi ay maamulka Guban State ka tirsan balse raggan ayaana ku dhuumaaleysanayeen iyagoona ay doonayeen inay dhagraan ciidamada geesiyaasha ee beesha Ciise balse xilli xiisad markaasi xoogan ay ka taagan tahay deegaanada markaasi u dhaxeeya gobolka Awdal iyo Salel wararka laga helayana ay sheegayaan in raggan saraakiisha ah ee lagu qabtay iyagoo halkaasi si ay dad deegaanka iska dhigayay kuwaas oo xogaha ciidanka iyo waliba sidoo kale jaajuusnimo ay halkaasi u joogeen balse ciidamada geesiyaasha beesha Ciise oo fahansanaa xaaladda iyo dhagridan ay wadaan raggan labada nin ah ayaana gebi ahaanba ay xogtoodii soo gabagabeeyeen iyagoona ay hadda gacanta ku dhigeen balse dhawaan ayaa la horgeyn doonaa ama loo geyn doonaa ugaaska beesha Ciise ugaas Mustaf si uu xaalka markaasi ama amarka ugu dambeeyo uu bixiyo haddii raggan saraakiisha la tooganayo ama haddii rag kale oo hadhowdii beesha Ciise laga qabsan doono ay markaasi ay ku bedelan doonaan xaaladda markan sidii hore waa ay ka soo tagtay beesha Ciise markan waxa ay mid u maaragtay u ugaarsanaysaa maleeshiyada beesha Samaroon saraakiishoodii iyo ciidamada u dagaalamaya iyagoo beesha Ciise hore u sheegayba inaysan rabin dadka birmageydada ah oo ay kaliya ay ugaarsan doonaan kuwa dagaalka ku jira iyo saraakiisha hogaaminayso iyo madaxda kala duwan ee markaasi la soo qaldayo dhanka kalena haddii aan fiiriyano maamulka Soomaaliland ayaa cabsi xoogan qaba in ay Iran ay duqeymo ay ka fuliso magaalada Hargeysa iyo waliba sidoo kale Xuutiyiinta Yemen iyadoona wararkaasi ay ku darayaan in ay dadka reer Hargeysa ay cabsi badan soo wajahday kadib markii la arkayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
ee dul maraya hawada dhanka magaalada Hargeysa tani waxay cabsi xoogan ku abuurtay maleeshiya ka tirsan beesha Samaroon iyo waliba sidoo kale maamulka Somaliland maadaama isku dhinac yihiin ee la isku yiraahdo beelaha Gudbursi xaaladda gobolka Awdal iyo Salil ayaa maalmiin dambe waxa ay noqotay mid markaasi si weyn ay baqdin badan ay u soo gashay dadka halkaasi ku sugan balse maamulka Somaliland ayaa tani waxa uu ku tilmaamay cabsi ay ka qabaan in maamulka Iran iyo waliba sidoo kale waan xuutiyiinta Yemen iyo waliba sidoo kale dawladda Iran ba ay kaga cabsi qabaanba in halkaasi duqeymo ay ka fuliyaan diyaaradahan aan duuliyaha lahayn la garan laayahay ayaa loo badinayaa in ay Iran iyo waliba sidoo kale xuutiyiintu ay leeyihiin kuwaas oo ay goofureegayaan hawada sare ee magaalada Hargeysa cabsi xoogan ay qabaan oo maadaama ay haddu Israa'iil ay doonayso in ay fariisamo ay ku yeelato ama saldhig weyn in laga siiyo ay rabto Hargeysa balse dagaalkii bariga dhex bilowday ayaa hakad geliyay haddii ay ciidamo ay ku lahaan lahaayeen Israa'iil ama Mareykan midkood waxaa dhici kartay in duqeymo xoogan halkaasi laga fuliyo balse laakiin xaaladdu ayaa hadda ah mid aad u kacsan oo ay dadku deegaanka waliba sidoo kale odayaashu ay dareemayaan cabsi xoogana in Iiraaniyiintu ay weerar waqti walba ay ka geysan karaan iyo sidoo kale xuutiyiinta Yemen oo markaasi iyaguna ay ka agdhow yihiin oo laga yaabo in xuutiyiinta Yemen loo adeegsado in maamulka Somaliland ay duqeeyaan haddaba daawade wixii wararkaasi ku soo kordhan waan idin la wadaagi doonaa xaaladda gobolka Awdal ma ahan mid sahlan oo marka ka dambayso waxay sii galaysaa xaalad adag oo ay cabsi badan ay ka muuqato ayaana hadda laga dareemaya dhanka kalena haddii aan fiiriyona madaxweynayaal hore Shariif Sheekh Axmed waliba sidoo kale Maxamed Cabdillaahi Farmaajo madaxweynihii sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa ay ku andacoodeen in 15 May ay dhici karto xaalad kale oo halisa maadaama laga cabsi qabo in dagaal xoogan uu dhaco dawladda hadda jirta ayaa ka harsan wax ka yar bil iyo bar ayaa nooga harsan madaxweynaha Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud balse madaxweynaha ayaa waqtigiisu gabaabsiga ah waxa uu sheegay in dastuurku ansixiyay sidoo kalena uu muddo sanad kordhina uu ku darsanayo balse laakiin mucaaradka iyo waliba sidoo kale madaxweynayaasha maamul goboleedka ayaana arrinkan u cuntumi waayay iyagoona ay wadaan sidii ay sanadii hore ama doorashadii teeramkii hore madaxweyne Farmaajo lagu sameeyay in Xasan isna tookadiisa lagu sameeyay xilli la filayo in madaxweyne Farmaajo uu mar kale dib isku soo sharxo isagoo uu doonayo in dalkan uu mar kale u hogaamiyo isagoona soo noqday madaxweynihii sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya balse madaxweynayaasha Shariif Sheekh Axmed iyo waliba sidoo kale Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa sheegeen in 15 May ay xaaladdu sida hadda ay tahay wax badan iska bedeli karto maxaa yeelay madaxweynaha hadda talada haya ayaa kursigiisa la heesiyay kaas oo uu doonayo in uu muddo kororsi halka sano uu markaasi uu ku darsado sidoo kalena dastuurkii dhawaan la sheegay in uu markaasi ay dhaqangeliyaan xaaladda dalka ayaa sii geli karta xaalad cakirnaana maadaama ay hub aruursi waliba sidoo kale isdiyaar garow xoogan ay sameynayaan bisha maartay 15 May ayaa ka harsan wax ka yar hal bil iyo bar taas oo ay noqon karto hadii uu madaxweynaha uu isku dayo ama u dhaqaaqo extension ama waqti kordhin ay noqon karto in xaaladda guud ee gobolka Banaadir iyo Soomaaliya ay isbedesho walow ay madaxweynayaasha maamul goboleedka Puntland Jubbaland ay ka soo horjeesteen iyadoona madaxweynayaal kalena ay si weyn ugu soo horjeesanayaan kuwaas oo Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyo Hirshabeelle iyagana ay ka hor iman karaan maadaama ay dastuurka aragtiyadooda xitaa ka dhiiban inay ku raacsan yihiin inay ka hor imaanayaan haddaba daawada adigaan maxay kula tahay haddii 15 May uu Xasan Sheekh Maxamuud uu qaban waayo doorasho maxaa dhici kara maxayse kula tahay qaybta hoose faalada aragtida nooga reeb daawada haddii aad halkan ila soo gaartay xataa qof qalbi wanaagsan waxaan sin xaris kaaga codsanaya inaad YouTube-ka soo subscribe garaysid muuqaalkan la garay si in share garay saaxiibada ila wadaag oo ku meesanta daawashada muuqaalka meesanidiin